حلي وحو حلي سيد محمد عبد الحسن ورنتي لا دغالمay nimanka gumeystaha xilliga Soomaalida qabyaaladu meel bay iska dhigeen haye adduunyadana waxay u muujiyeen mujtamac jir inay yihiin waxayna ku qasbeen gumeystihii Soomaaliya ku soo duulay inuu Soomaaliya ka baxa mid labaad xilliga Israa'iil weeyaan dhalinyaro wax baranin oo runtii yani waxa weeyaan aqoon hoos leh laakiin nationalist oo runtii qabiil intii ka tageen soo imaaday ay dalkii midayay taasna waxa Soomaalidu xornimo ku heshay gumeystay isaga tuureen tasaddexaad waxa weeyaan xilligii uu xukumayay Aadan Cadde iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen labada nin waxay nationalist ahaayeen oo runtii qabiilada aad ugu dheereen ayagana wadanka horumar bay gaarsiiyeen xilliga afraad waa xilligii dhalinyarada militariga dalka xukumayeen Major General Maxamed Siyaad Barre ku xukun qabtay waliba aan dhahamantii intuu shirka ku dhicin ka hor wixii ka horeeyay dalka wuxuu gaarsiiyay meel cajiib loo gaarsiiyay marka afarta xilli